دبال تي في هكفوغان حقوقال دبا إيو حقيقوين سوغان دبال تي في هكفوغان حقوقال دبا إيو حقيقوين سوغان بيني رد ملي بيني رد ملي يا لا لو تنموذا kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta oo dunida ka joogtaan ba waana mar kale iyo Dambal TV waxaanu had jeer ku soo qaadanaa arrimaha geyiga Soomaaliyeed waxaanu si gaar ahaaneed u abaarnaa hadba xaaladaha ka aalusan deegaanada Khaatume State of Somalia hadaba daawadayaal toddobaadkan Dambal TV waxaanu ku eegi doonaa isla weynida iyo ismahadinta maamul goboleedka Somaliland ee ay tukubaha u hayso beesha dhexe iyo waxa kala haysta maamul goboleedka Khaatume State of Somalia oo iyagu ku tashaday inaysan mar dambe cidna aysan u daba fadhiisanin talada deegaanadooda iyo masiirka shacabkoodaba daawadayaal dhageystayaal sida la wada socono maamul goboleedka Somaliland markii ay ku guul dareysteen inay qori caaradis ku qabsadaan qaar ka mid ah deegaanada Khaatume State of Somalia balila fiirsada baryootanka xeeladaysan macnihiisuna ahaa kaale oo maamulkayga ku soo biir kaagana soo duulay وحشاد أصبر ما كان يسمع الوالد أنا أقول للسلطة والله مرنا والله مرنا أنا يتعود سوى الله بيسلنا كان وحرق يسوع ديار ما ربنا كان من الحوار كان الوزير كان حزب الكبار ديار ما ربنا لكن لما كان ما يسوع إلى الأرض الممضي بيني رد ملي بيني رد ملي يا لا لو تنموذا daawadayaal saaxiibayaal waraa loo yiri gacan gadaal ka baqaysa hore wuxuu goysay hadalkaasi dalabta leh reer ismahadiyeyna ka soo yeeray isla markaasina aysan ku dheehnayn niyad sami iyo calool xaadni balila dheho muuqaalkan kadibna isbarbar dhig kan iska hadlay iyo geesigan mowqifkiisa cadaystay waxaan ku yiri maamullo aad ka baridaan wasiir hana la siiyo ama ilaahay dukure agaasimo hana la siiyo يا عريرها إذا كحيجي أو مجن إيا مرتين الله هاي وحن إذين ودنا مامل ملحوينه هذي إذن كأتهين ملحوينه كحيجين كي إذن وزير كي مالية إيا كالدفاع إيا كارمها جدوه بقى غير خاتميهين أمبرية وزير لجهلين كاوي كائن بسرعنا كاوي كائن نبكنا كتير ركاب بحكرينا talama meel kale la inooga soo dhoofiyay waa ta halka ayna geysay daawadayaal hore loo yiri sidiidaada mooye dhul dhacaaga hubse maamul goboleedka Somaliland miyay ku fashilmeen siyaasadoodii dibadda mise way ku guuleysteen arrinkaasi waxaan u dhaafi doonaa mid ka mid ah xildhibaanadooda oo isagu qarin kari waayay waxay beesha caalamka iyo dawladaha dariskuba ku yiraahdeen dhulkan ku dhacayna siyaasadii dibaddana zero baan kana dawladaha jaarkoo dhani xidhiidh wanaagsan mali waxa hadda la yidhi la hadla Ali Khaliif la hadla la yidhi Ali Khaliif nimankeenii dawlad Somaliland baan nacay oo jabay in dawladda iyo ganacsiga gurubka Ali Khaliif Somaliland ay wada hadlaan وأنا كده عليه وأنا شعره بيني راد مالي بيني راد مالي
رد ملي بيني رد ملي يا لا لو تنموذا daawadayaal saaxiibayaal bal imikana aynu doc kale uga wareegnay muddo ka badan 20 sannadood waxay meel walba la taagnaayeen waxay ugu yeedhi jireen gooniisu taag iyo inay dib ula soo noqdeen madax bannaanidoodii haddaba aqoon-yahanad ka soo jeeda gobolka waqooyi galbeed ee Soomaaliya maxay ka tiri arrinkaasi shacab badan lagu waalay annaka xaqiiqadii soo taabanay xaqiiqadiina soo aragnay waxa maamul goboleed bay Somaliland tahay 18 gobol ee uu Sheekh Xasan sheeganayo baynaynu ku jirnaa wasiiradeennuna iyaka ugu maxahaydin ugu wacan waayo way la fariisanayaan meeshii oo la leeyahay Soomaaliya lagaga hadlaya kuweeni baa dhex fadhiya ma waxa loo qaadanayaa NGO bay Somaliland maanta noqotay تعالوش عادي حنونتي waxay maanta Soomaaliland ma NGO bay noqotay ma NGO lacag lagu soo qaadan lagu soo urursanaysa bay noqotay warshunta aynu soo sheegno hore loo yiri managa waalan misaadan baa laga heesayaa ururweynaha igaad ee fadhigiisu yahay wadanka Ethiopia iyaguna sidee u arkaan maamul goboleed hoos yimaada dawladda federaalka Soomaaliya mise wadan ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale igaad af buuxa wuxuu igu yiri oo shirkaadan uu ka yiri maxaa haydin I am sorry waa runta horumarka ugu weyn Somaliland way samaysay oo aad baan maxaa hayd ugu faanaa bad laakiin waxa weeyaan wadan Soomaaliya hoos yimaada urur goboleedka igaadna wuu cadeeyay mowqifkiisa in ujeedadiisa iyo dadaalkiisa iyo waxa uu doonayaa ay tahay midnimada Soomaaliya oo isu dhan oo taa macnaheedu inay ka soo horjeedaan goonistaaga Somaliland beeni rad male ila lawrun mamoday بيني رد ملي بيني رد ملي يا لا لو تنموذا saaxiibayaal daawadayaal oraa loo yiri beeni raad ma leh 20 sannadood iyo siyaadada la socotay dunidaasi ballaaran maxay ku gooshayeen baasaboor iyagu lahaayeen mise kii Soomaaliya حاجة إنا وسواء حاجة أفرت كيلو كنت أفرنجليا ما ندوني أوليمو ولا أحسن وهي هرجيسو بدن أو سومالي لما بعد بدن بسومالي لين كحاجة دت كحاجة هو تمر كهرب باسابور كي سومالي يودسيت أريجو حد معنا أيام باسابور كي عبد الله يوسف كهرب تمر كهرب كحاجة حاجة إلهي غيرها كسية رباط كو هذا الشيء أنت حاجة كسوميدين عالمكي أياد هرسانيسين تاغنين ما انتي دولت حجات الصومال اللي واحد هرسانيس عالمكي بروكي لها نبوي جنبي هاي يقفل ماي إنكو قفل ماي وواحدة حاجي بالمركة لشعب كاللوالي إلا مجرها بابيي وحادو شيكتا حقيقة نبتاهي هالكا إداران تهي سيبال أي هذا الكاغا وقودا ووبان كفتا بانا دحمر صح وأنا قلت لي أنا خرجت وقفت وحنا نملي وحبينا كلا قوسنا وأتمنى إن كانوا قابلين أيه سبب تريها كايسة تعرير نقوله قام سنة وسووا ساول يربط عتي يكون الجمال اللي وقفته بيجي هيك شيء ساول يربط قعدته وسيدي برجع ولا كاول يصح يربط عتي يكون الجمال beeni rad male ila lawrun mamoday بيني رد ملي بيني رد ملي يا لا لو تنموذا
and create mayhem as quickly as we did. Your Excellency. The Council also expresses its appreciation to the government and the people of Somalia for hosting this extraordinary session done at Mogadishu, Somalia on 10 January 2015. Somalia is back, a normal country and part of the nation